taariikh yar baan idinkaga sheekaynayaa. hadda kahor waxaa jiri jirtay gabar caariyaada oo weliba aan soo hoyan jirin 14 iyo laandayrta qabto cirka laga soo rid ah oo habeenkii aan soo hoyan jirin. gabadhaasi fawaaxish laga xishoodo wax aysan samayn lama arko. maalinkii dambe wax guursaday weydi. waxaana maanta idinkugu bishaaraynayaa gabar jirkeeda social mediaha keentay, gabar jirkeeda baraha bulshada wareejinaysa, gabar cawradii la qarin jiray dadkii tusaysa wanaah jidka kaga hor keenaysa. ogaada mooryaanka qaadicu dariiqa ah wallaahi inuusan guursanayn. tuugga ummadda dhacahaya waxa uu jecel yahay gabar xijaaban. ma kaa yeelaya ilaahay, munkar iyo nakiirna kaa yeeli maayaan. cawaalo aadan baan u camirahay. yaa ku yidhi cawaalo aadan u camir? yaa kuu diray hawshaan? yaa qaba ku yidhi? yaa kugu buushgareeyey? yaa kugu qasbay? yaa hantidaada ka soo bixiyey bangiga? yaa maalkaaga jeebkaaga ka soo siibay? soo adigu khiyaar ugamaada soo siibin. ku xisaabtan inaadan ku badbaadaynin. tigid aad ku gadato $20 oo aad ilaahay wax ka caraysiinahaya aad ku iibiso, ogow maalinka qiyaamaha iyo godka iyo qabriga labadaba waa lagugu weydiinayaa. bismillaahi araxmaani araxiim. kulla caam wa antum bikhayr. dhammaan shacbiga soomaaliyeed waxaan ugu hambalyaynayaa dhalashada ciidul adxaa oo ah maalin aad ugu weyn dadka muslimiinta ah. dhammaanteen waxaan isugu hambalyaynaynaa farxadda ciidul adxaa. ilaahayna waxaan ka baryayaa ciidan ciiddiisa kale inuu nagu gaarsiiyo caafimaad, bashbash iyo barwaaqo iyo dalkeenna oo nabada. waa xilli dambe waxaa isoo kiciyey wax yar ma aha. waxaan maqlay berri oo ah maalin aad u weyn in caasimaddii magaalada muqdisho lagu qabanahayo show oo uu hormuud ka yahay cawaalo aadan. waxaan kaga digayaa shacabka soomaaliyeed maalinkaas islaamka farxadda u ah in ay munkaraad laazimaan. maalintaasi waxa weeye waa maalin weyn. waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala camal la qabto uu ugu jecel yahay dabiixada. waa maalin muslimiintu ay taagan yihiin banka carafa. walaal waxaan kaaga digayaa in aadan aadin munkar, inaadan waxba tigida gadan, inaadan ka qayb gelin. ogow maalka meesha aad ka keento waa lagu weydiinayaa, meesha aad ku bixisana waa lagu weydiinayaa. adoon ka jawaabin janno iyo naar midna u gudbi maysid, ilaahay hortiisana lagu istaajinayaa. tigid aad ku gadato $20 oo aad ilaahay wax ka caraysiinahaya aad ku iibiso, ogow maalinka qiyaamaha iyo godka iyo qabriga labadaba waa lagugu weydiinayaa. waxaa lagu dhigayaa walaal qabri, waa lagaa soo tegayaa. waalidkaabaa kaa soo tegaya, walaalkaabaa kaa soo tegaya, xaasaskiinaa idinka soo tegaya, ilmihiinaa idinka soo tegaya. wax idiin miciinaya ma leh. meeshaas markii lagu dhigo waaga ayaa kugu baryahaya. ma kaa yeelaya ilaahay, munkar iyo nakiirna kaa yeeli maayaan. cawaalo aadan baan u camirahay. yaa ku yidhi cawaalo aadan u camir? yaa kuu diray hawshaan? yaa qaba ku yidhi? yaa kugu buushgareeyey? yaa kugu qasbay? yaa hantidaada ka soo bixiyey bangiga? yaa maalkaaga jeebkaaga ka soo siibay? soo adigu khiyaar ugamaada soo siibin. ku xisaabtan inaadan ku badbaadaynin. waxaan idinkaga digayaa muslim khilaaf inaad noqotaan. maalinkaasi waa maalin islaamka oo dhan ay u tahay ciid. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaan uga dayanaynaa. haddii maalinkaasi waxaa la qabanahayo wax ka duwan aad la timaado, ogow muslimkaad khilaaftay. qof muslim khilaafayna u malaymahayo ilaahay hortiisa inuu kala kulmahayo cawaaqib. waan idinkaga digayaa. kilibkan waxaan uga faa'iidaysanayaa iyo weynida maalintaani gabdhaha qaaqaawan oo tiktok maalin waliba laga joogi layahay cawraadkiina, oo marna halkaa kaa tusahaya naaskii, marna halkaa kaa tusahaya doollihii, marna halkaa kaa tusahaya lugihii. war ma weynan ilaahay ka baqayn? war ma weynan dhimanayn? war ma waan qabrigan madow oo cidhiidhiga iyo cidlada iyo cabsida iyo cadaabka kulansaday war miyayna ka baqayn? war nebi moxamed baa ilmayn jiray calayhi salaatu wasalaam marka uu dul istaaga qabri. markaasuu oran jiray meeshaan waa mansilka ugu horreeya ee cadaabta, waana mansilka ugu horreeya ee jannada. qofkii halkan lagu cadaabaa ilaa abadul aadaab cadaabkaasuu ku jirahaya. war naagaha isqaawinahaya, war ilaahay baa calafkiinni qoray.
war waxa idin guursanahaya ilaahay baa qoray. Waxaana maanta idinkugu bishaaraynahaya gabar jirkeeda social mediaha keentay, gabar jirkeeda baraha bulshada wareejinaysa, gabar cawradii la qarin jiray dadkii tusaysa wanaah jidka kaga hor keenaysa. Ogaada mooryaanka qaadicu dariiqa ah wallaahi inuusan guursanayn. tuugga ummadda dhacahaya waxa uu jecel yahay gabar xijaaban. taariikh yar baan idinkaga sheekaynayaa. hadda kahor waxaa jiri jirtay gabar caariyaad ah oo weliba aan soo hoyan jirin 4 iyo 10 iyo laandayrta qabto cirka laga soo rid ah oo habeenkii aan soo hoyan jirin. gabadhaasi fawaaxish laga xishoodo waxaysan samayn lama arko. maalinkii dambe wax guursaday weyde. nin alla ninkii u yimaada zinu ka dalbahaya. waa waxa gabdhaheenna hadda haysta. waa waxa guurku u yaraaday. waa waxa weeye gabar kam wax yiraahdo la la'yahay. ay guriyihii bay wada dhooban yihiin, jirkii bay baneeyeen, yaa wax ku falahaya. ma naaqawan baa nin ilmihiisa hooyo uga dhigahaya? maya. gabadhaasi nin wadaadaha la taliyey wuxuu yidhi is astur, ilaahay diinkiisana baro, qur'aankana xifdi. gabadhaasi magaalada muqdisho caan bay ka tahay. 14 boqolkii qur'aanka kariimka ahay baratay. qur'aanka marka ay baratay, axaadiistina baratay, waxaa gorgorinahaya shirkadda Hormuud iyo shirkadda Dahabshiil ragga ugu lacagta badnaa. 7 qofood baa loo diiday. hadda waxaa guursaday nin maaniijara. kambanigu u shaqeeyo sheegi mahayo. maxaa yeelay waxa laga yaabaa Soomaalida inuu ku caydo. waxa laga yaabaa in la yiraahdo gabadhii saas ahaan jidhay. gabadhaasi nin wanaagsan baa guursaday, asturtay, lacagta laga bixiyey iyo dahabka laga dhiibay gabar Soomaaliya lagama dhiibin. wax la shaaciyana ma baraha bulshada lama keenin. gabdhaha isqaawinahaya ogaada ninka guurka idinka dalbahaya xataa waa mid ilaahay iyo rasuul intaba kadeecay. jirka aad la taagan tihiin baraha bulshada joojiya haddaad rag rabtaan weeye. intaas baan kusoo gabagabaynayaa. ilaahayna ha laga cabsado. showga berri ka dhici doona magaalada muqdishona waan ka digayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqana ha idin waafajiyo. mar kalena waxaan idin leeyahay kulla caam wa antum bikhayr. aquulu qawli hada wa astaghfirullaha alcadiim wa atuubu ilayh. waxaan ahay abwaan xarago oo idinla socodsiinahayay wax yaroo baraarujina. intaan muuqaal midkaan la mid aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay jannadii ayaa noo ballana insha allahu tacaala. assalaamu calaykum.